كالي دنيتا وليغا هذه يماتنا إيمانكي صدقالي دنيتا وليغا هذه يماتنا إيمانكي صدقالي وسؤال ويني القياس في ما تدونا داوية عذركو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن إذن كين بداو ضيال وبرنامج كيني عافيمادك وطبعا تضباط كيبا هابين كانوا كلي يحلي كانوا كلي آد كدا وطان استوديوها تلفزيون كقرن كأي عاصمة هرقيسا. برنامج كيني عافيمادكو waxa aynu waqtiga aynu ku guda jirno aynu ku soo qaadanaa mowduucyo aan ugu talagalay in markaasi aan uga faa'iideyno dhammaanba inta ku hadasha afka Soomaaliga. waxaanu toddobaadkan barnaamijkeena caafimaadka aan idin xasuusin doonaa in aynu halkan ka baran doono casharo iyo tilmaamo waxaanay qusaysaa inta aan tilmaami karo inay yihiin dhammaanba inta qoysaska ama xaasas kale iyo inta kale ee ku soo jirta amaba dariiqa ugu soo jirta in ay reer iyo rug yaqleelaan iyo dabcan cid kasta oo markaas imaankooda iyo caqligooduba jecel yahay inay uga sii faa'iideeyaan bulshada inteeda kale. mid ka mid ah barnaamijyadii aynu hore u soo qaadanay ee 2 bilood ka hor habeenada ka mid ah oo barnaamijka caafimaadka halkan aanu idinka soo gudbinaynay oo ahaa barnaamijkii ugu xiisaha badnaa dabcan ballanqaadkiina iyo codsigiinaba wuxuu ahaa inaan mar kale idin soo celino oo madashan iyo halkan aanu idin soo fadhiisino Dictorisa Faadumo Xaashi Iimaan wada garatay oo wada fahantay ayaan filayaa daawadayaal in toddobaadkaasi iyo maalintaasi aynu barnaamijkaasi qabanay uu ahaa barnaamij cilmiyan iyo caqliyanba dhisan isla markaasina ahaa mid waxbarasho iyo mid caafimaad iyo mid tusaale intaba. waxaan mar kale si qiimo iyo qadarin iyo sharafibo ku dheehan tahay ugu mahadnaqayaa Dictorisa Faadumo Xaashi Iimaan oo si qiimo badan noo soo ajiibtay diyaarna u ah in toddobaadkan aynu barano casharo ka mid ah mowduucyadaanu idiin sheegi doono waqti yar kadib iyo dabcan toddobaadka dambe oo u diyaar garoobi doontaan inaanu idiin soo bandhigno waxaynu ka hadlaynaa muuqaaladii ka turjumayay iyo dabcan su'aalihii aanu idinku talagalnay inaad caawa ka faa'iidaysataan oo qof kastooba su'aasha kugu mudan aad meel ku qorato. barnaamijkuna waa barnaamijkii caafimaadka aan ku soo dhaweeyay Dictora Faadumo Xaashi Iimaan ku soo dhawo barnaamijkeena caafimaadka. aad u mahadsantahay waan soo dhawahay Dictore barnaamijkeena caafimaadka ee toddobaadkan inaga iyo dadweynuhu waxaynu halkan ku lafaguri doonaa waxaan ceeb ahayn laakiin ah cilmi. waxaynu halkan ku lafaguri doonaa wax in badan oo dadka ka mid yihiin ay qarsoodi ama dhibaato u arkaan haddana ka mid ah awoodaha qadarada Ilaahay ku yimaada. dhalmo la'aantu waa nooc ka mid ah awoodaha Ilaahay uu deeqda u siiyay aadmiga. dabcan awlaaduna waa deeq dahaba oo Ilaahay uu ugu deeqay dad badan oo ka mid ah qoysaska ku nool dunidan guudkeeda. haddaba wax kasta ama sabab kasta waxa ay ku timaadaa iyadoo qadarka Ilaahay iyo awoodaha Ilaahay aan la dhaafayn sababahaasina waa kuwo ay diintu banayn karto in laga hadli karo isla markaasina la furdaamin karo oo la daaweyn karo ama ha lagu daaweeyo ducooyinkii nabigeena subhana nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haato amaba aynu adeegsanaa habka dhaqaatiirta ee casriga ah oo inta ugu badan lagu furdaamiyo labaduba waa mid diintu ay banaysay isla markaasina aan ceeb ahayn waayo hore ay loo yiri wixii Ilaahay uu deeq u siiyay ceeb maaha. ugu horeyn Dictore barnaamijkeena caafimaadka ee toddobaadkan waxaan doonayaa inaynu kaga hadalno ugu horeyn dhalmo la'aanta. bal mowduucaasi ugu horeyn markaad eegto dunida guudkeeda iyo markaad reer Somaliland eegto bal hadda ragga iyo dumarka qaybtee ayuu ku badan yahay maxaase sababaha loo nisbayn karo kamida. okay aad u mahadsan tahay intayna horta gelin maxaa keena ayuu ku badan yahay horta waa inaynu meel isla dhignaa horta bal dhalmo la'aanta waxa weeyaan laba qaybood baan u qaybinaa. mid waxa weeyaan mid la daweyn karayo yani oo aanad qofkii ka samareynin midna waxa weeyaan waxaad go'aan baad ku gaadhay
qofkan dee ilaahayba uma qorin inuu caruur yeesho marka waxa laba loo kala saaraa waxaan kugu sheegay laakiin dhalmalaanta badida waxaan nahnaa marka reerku ay xaas yeeshaan 12 bilood si joogta ay wada joogaan ilaahayna aanu dhexdooda waxba ka beerin marka waxaan leenaynaa dhibaato dhalmalaan baa jirta markaynu baadhno aynu wixii dabagalno haddaynu aragno in maxaa hayday aan waxba laga qaban karaynin waxaynu oranaynaa magaciin waa la bedelayaa waxay noqonaysaa waxaa la sterility oo afka qalaad lagu yiraahdo sterility annagana afkeenana de waxa weeyaan lama daweyn karo kale ka dhigtay wixii waa dhamaad inkastoo imika adduunyada taa laftigeeda especially weliba ragga in qaar badan la daweyn karo iyadoo markii hore lagu qiimeeyay inaanay ahayn in la daweyn karayo haddaynu soo qaadano su-aashaadi weydiisaan dib ugu noqdo ahayd ayuu ku fara badan yahay ragga iyo dumarka adduunyada kale iyo Somalilandba horta waxaa loo kala qaybiyaa 3 waxaa loo kala qaybiyaa dhalmalaan ragga ka timid dhalmalaan dumarka ka timid iyo dhalmalaan labadiiba ay caadi yihiin haddana aan ilaahay dhexdooda waxba ka keenin marka adduunyada soo qaadano intay ka joogtaa waxay ka dhigan tahay dumarku waa ilaa 40 ragguna waa ilaa 35 boqolkiiba dumarku boqolkiiba 40 ragguna boqolkiiba 35 waxay ka dhigan tahay inta kalena waxay yani 20 ka kale 25 ka kalena labadiiba qofba waa caadi laakiin haddana caruurtu ma haysan iman haddaynu Somaliland soo qaadno inkasta oo aan de waxa loo baahayay in la sameeyo baaritaan weyn dawladdu ka qayb qaadato wasaaradda caafimaadku ka qayb qaadato dad badan la eego marka dhaqaatiirtu ay isla wada kaashadaan deetan wixii la isku keeno inkastoo aan taa samaynin oo aan wali da wixii kalaaba yaalo aan wali aan wax cilmi baarida la sameyn haddana waxa weeyaan marka anaga dadka ii yimaadaan eego ama dadka dhakhtarka weyn iigu yimaada ama dadka ani si gaar ah iigu yimaada markan eego aan waxaan arkay Somaliland rag inuu badan yahay Somaliland ragga ku badan Somaliland ragga ayaa ku badan doctore marka aynu soo qaadano ogaanshihii iyo sababihii lagu ogaanayay inta badan dadku waxay tilmaamaan ama ay yiraahdaan dhakhtar dumar baa jira laakiin dhakhtar rag ma jiro marka ogaanshihii aad ogaateen ma raggii baa idin yimi ma dumarkii baad baadheen oo waxba ka weydeen wax dhibaato ah sidee ayaad ku ogaateen in dhibaatadan rag ku badan tahay waxaanu ku ogaanay waxa weeyaan horta waniga kuu sheego boqolkiiba 40 ka soo qaad waa dumarka boqolkiiba 35 ilaa 40 waa raggii yani way isku soo dhadhow yihiin marka caadiyan Somaliland imika iyo de cadaynu aan wadanka ka yimid oo Djibouti dadku waxay badida raggu wadib xagga daba ismariyaan gabadha iska soo horeysiyaan marka gabadhan ay noo timaado adeeto waxaan nidhahnaa waan u sheegnaa gabadhan ku nidhahnaa walaalo ninkii gabadha iyo ragguba waxa weeyaan labadooduba waa gabadhuna waa boqolkiiba 50 bay keentaa wixii ilmaha ka yimaanayay de boqolkiiba 50 karana waxa ragga ka timaada sax marka haddaan adi kaliya ku baadhno de qaybtii ragga inaga maqan marka waxaan naahnaa bal odaygana noogu yeer marka badida waxay naga codsataa in horta iyada baadhno kadibna aan deetana odayga u yeerno deetana waayaanu nidhahnaa deeta waanu bilowna markaanu bilowno aanu dhaxda marinayno ayaanu nidhahnaa haddaba adigii wax badan kuguma hayne bal raggii noogu odaygii noogu yeer deetana markaasuu qaarkood baa markaa yimaada waqti marka yimaadaan aanu baadhno aan eegno isagiina aan eegno deetana markaasaan ogaanaa marka in yani la ogaado waxa dhib yar ragga markaaba ragga waad ogaanaysaa waxaad ku ogaanaysaa wax yar oo dhib yar waxaad leedahay 3 cisho hay sarkina deetana maalinta dambe waxaad ka qaadanaysaa biyaha yaad ka qaadanaysaa ما نوع كمية من واحد كقاعدة بيها لفتودي أدودينا بلادين إن أدو رجع واحد كقاعدة نسا بيهوك ديتنا واسأل بوري بيرتهاي مركب واحد كو إيجا سا وحشان مايكروسكوب كا يلا جو إيجا وينيسدا ديتنا وادر كيسا نك واحد لو جاب هاي لا بقول يكون تكون حبضات لا بقول يكون تكون حبضات إنه سيدا حلقي مربع يا مركب وحي أنا بدر كسا ماشي أدمود يسد أرض يوم وقت هداد ويدي بين حبديبا ku jirin ama ay yar yihiin markaad garanaysaa inuu problemku isaga yahay deetan markaas la baadi doonaya maxaa keenay markaa isaga inuu ninkii ay dhibaatadu ay tahay markaas aad baadi doonaysaa
way qiyaastan 250 kun ee xabo hadiiba ay ka yaraadaan qiyaasta ugu yar ee la oran karo xaaladaasi way keeni kartaa inuu ninku dhali waayo maxay noqon kartaa loo qiyaasi karaa horta dhalmada rabbiga bixiya waxaan u aqaanaa cases aniga soo maray oo rag ahaa oo 2 xabo 3 xabo ku jirtay oo caruura dhalay oo marka qaar kood shakroon israana warmiya loo dhalay deema garanayna waqti 2 xabo laakiin badidar waxa la yiraahdaa ilaa 40% content in aan ka yaraanin ayaa fiican ma ho kaliya tan numberka ma eegno waxa meesha waxa deegsan numberkii numberka kaliya tan la meegay waxa la eegaa sida u socdaan qaabka u ordayaan hadduu iska daalay oo ordaynin de meel shisha gaari maayo waxa deegaysaa kale sida uu sameeyay yahay oo xantiisa soo samaysan tahay haday madax kuuskuusayeen haday dhibaato leeyihiin waxyaalo badan oo laga eega jira waxa deegaysaa kale moogtahay inay waxa la yiraahdo ma acid ba ma base ba pH ka waxa afka ingiriiska ku nidhaahno yaad eegaysaa haday acid tahay dayadina socol meesha oo dhan ma korayso waa dhibaato marka ma biyo kaliya tiin eegaysaa numberka waxa deegaysaa maxaa hayday quality go yani awooddoodii iyo quality qiimayntoodii yani doctore waxaan filayaa in ka faa'iideysiga barnaamijkani uu yahay mid aan filayo oo aan jecelahay in dadku inta ugu badan ay ka faa'iideystaan doctora Faadumo Xaashi Iimaan si markaasi aynu u noqono bulsho ku dhiiran karta in wax kasta oo xagga Ilaahay ka yimi aynu Ilaahayna barino isla markaasina wixii waajib ah in aynu istaaweyno iyo dhaqaatiirta aynu u tagno inaan lagu caadaadin cid gaar ah ama cid gaar ah aan lagu tilmaamin ee lamaanuhu ay wada jir isu baaraan duruufa jirta doctor Faadumo marka ay dhibaatooyinka noocan ay taagan yihiin ee aad baadheen ee aad ogaateen sababaha ugu badan ma kuwa qofkan si caadi oo ku soo dhasho qadar Ilaahayba ma kuwa waxyaabo uu isticmaala ay keenaanba maxaa u sababa loo malayn karaa in raggii markay dhibaatooyinkaas ku yimaadaan horta inaga waxayna ragga waxa u sababa ugu badan waxa weeyaan waa qaadka weeyaan ragga Soomaaliland waxay kaga bateen ragga adduunyada iyadoo wixii ragga adduunyada keenaya ay ku keenayaan waxa iyaga u dheeraada qaad bay cunaan marka qaadku dhibaato badan buu keenaa awal qaadku wuxuu ahaan jiray had noqdo daroog ama fahmina qaadku waa daroog waxa ku jira wax la yiraahdo katay waa qaadkii ku jirta waa la ogyahay waa la baaray jaamacada adduunka oo dhan baaray waa daroog marka darooguna dhibaatadiisu leeyahay wax badan buu keenaa taas iyadoo jirto daroogu dhibtiisa leeyahay haddana imika qaadku wuxuu noqday bay'ad mushtari waxa la arkay in lacag laynaga helayo dabeetana wadanadeenu qaadka ka qaadanay waxay wanaajinayaan jaadkii bay wanaajinayaan quality-giisa bay wanaajinayaan marka waxay ku buufiyaan waxyaalo badan oo dawooyin sun ah ay ku buufiyaan sunta laftigeega ayaa waxay u tahay dhibaato inay jejebiso ay dhibaatayso nimanka ugu xantooda waa dhibaato weyn ay haysataa marka dadkanu baadhnay dadka ugu faraha badan waxa weeyaan nimanka qaadka cunaa qaadkii marka qofkii waxa jira wax la oran karaa dadka qaarkood iyagoo oo qayila ayay dhalayaan haddana Ilaahay siinaya deeqdii qaarkood waxa la oranayaa adigu qaadka iska daa labadan nin ee marka midna labaduba qayila maxaa farqi u dhaxayn kara maxaa bal aynu tusaale ka bixin karnaa ilaa kan wax laga yaabaa iyaga yoonaya bal hebelba ama walaalkaaba isagoo qayila haddana waa kan Ilaahay deeqdiisii adiga maxaa qaadka kaliya ku koobay waxay dhibaatadaas oo kale maxaa waxaan ku yiri marka waxaan ku riday waxa jirta waxyaalo badan oo keena oo adduunka aynu kala simanahay tii iyadoo jirta ayna waxaan ku sii darnay qaadku waa mashaakil kale midda kale waxa iyadana kale soo galaysa cuntada waa in cuntadaadu hata mid isku dheeli tiran oo inta 6 qaybood ee cuntadu ka koobnaydba ay ku jiraan biyihii proteinkii karbohaydraytkii mineralskii fitamiinskii 6 qaybood wayna wixii oo dhan cuntadaadu mid isku dheeli tiran ay hata mid kale iyaduna jirta stress waxyaalaha ugu faraha badan ee rag iyo dumarba dhasha ka kaxeeya waxa weeyaan warwarka hadduu qofku warwaro waxaan habkan maxaa hayday Ilaahay taranka u keenaa ma ho kaliya tan biyo ay tahay ama gabadhu waxaan soo diiso waxa laga xukumaa maskaxda qaybteena ugu sareysa dabeetana maskaxduna qayb hoose maskaxda oo hypothalamus ay soo amartaa dabeetana haddana dheeca waxa la soo amraa qanjir ilaahay hypophysis oo kasii hooseeya dabeetana waxa la amraa nimankana maxaa haydayeen xiniyooga dumarkana moogtay meelaha lagu sameeyo xansido sax dabeetana ilaa marka waxa stressku waa waxa horta isagu xukumaba stressku wuxuu keenaa in la soo daayo waxyaalo fara badan oo dhib inoo geysta
marka kuwaasi oo maxaa hayday negative bay ku yihiin dheecaanadii inoo sameynayay in ugxan la soo daayo ama in la soo daayo spermatozoid marka labadan walaalaha ah waxa laga yaabaa mid inuu qabo stress plus waliba qaadkii waliba cudurradii kale u dheeraadka ahaa ila dadku ma wada bukaane inuu jabti la kulmay inuu cudurrada kale la kala qaato la kulmay inuu macaan leeyahay marka labadii walaalaha ahaa weligaaba dacun waxa laga yaabaa adiga in factories kale waxyaalo kale oo dhibtii sii weyneynaya inaad haysato doctore ma jirtaa mushkilado kale oo aynu soo qaadan karno oo raggu qarsan karaan oo aanay dhakhaatiirtii ula tegayn oo laga yaabo qofku markuu dhallinyarada yahay in xaaladaasi ku timaado isaga oo qayla ama balwad leh isla markaasina uu guursado saameyn ku keento noloshiisii waxa kaliya u baahnaana ay tahay inuu ku dhiirado dhakhtarkii ma jirtaa xaaladaas oo kale way jirtaa badida dadkeenu iminka ragga markay ku yimaadaan tiraahdo jabti weligaa ma kugu dhacday maya bukoodha wula soo boodayaaba odhan maayo jabti baa igu dhacday jabti kaliya maaha waxaa jirta qanjidhadan markaynu yaryar nahay dadka blue baa la marin jiray bluekii dharka lagu iyo dumarku marin jiray markii la yaraa hadday dadka ku dhacdo moogta iyagoo yaryar qanjidhadaasi waxaa dhici karta inay maxaa hayday inay saamayso meelahan maxaa hayday inay saamayso testiculaha soo maad garan marka ay deedlayso oo ay dhibaatayso isagii aan waxbaba samaynin aan qaad cunin aan wax kala samaynin inay taasoo kale ay marka yareed ku dhacday waxaa dhici karta in markuu yaraa maxaa hayday dhaawac gaadhay ama gaadhi ama wax ku dabeetana ay xiniyihiisii ay ka burbureen marka wax badan baa keeni kara way mid kale aynu sii doonaynaa inaanu kusii weydiiyo inta badan dadka qaarkood amaba ay tilmaamaan amaba dhallinyaradu markay goobaha isku jirta ay ka sheekayn karaan in oo qaarkoodba dee lagula kaftamo oo la odhan karo in dadka qaarkood kaadidu ay gubtay iyagoo oo dhallinyaro oo kale ah deetana la yidhaahdo balwadna ay leeyihiin dabeetana la yidhaahdo qofkaasoo kale haddii ilaahay uu keenaba inuu waxbaba reerkiisii carruur kale siin waayo in isaga laftiisu nafsiyan uu shakiyo marka ma jirtaa xaalado la xidhiidha tusaale ahaan cudurro ay keeni karaan kaadida ku gubto oo kale oo saameyn ku yeelan karta xagga dhalmada dee haa jabtidu kaadi gubid bay keentaa waxaa kaloo la socda inaad malax sii dayso waxyaalaha lagu gartaba dee in qofka kaadidu gubto dabeetana aad malaxina la socoto marka taasi waa ta ugu daran jabtidu waa ta ugu daran waayo waxay keenaysaa dhuumiyaha biyuhu soo mareen bay xidhaysaa dabeetana ugxantii soo mari mayso saameynta ugu weyn ee ku iman karta xubnahan muhiimka ee taranka ee ragga tuumbooyinka oo kale markaad iminka dhowr jeer ku celisay inay xidhmaan waa saameyn nooceeya haddiiba ay xaaladaasi timaado de waxbaan marka xiliyuhu soo daayo bahashan maxaa ahaydeen ugxantooda ay soo daayaan waxa isku xulaya ilaa halkii kale ee ugu dambeysay waxa isku xulaya waxay soo marayaan tuumbaha biyadoo kale soo marayaan dee bal adigu tuumbadaada biyaha dhexda ka xidh xagay biyihii soo marayaan ma soo marayaan de miyaanay ahayn dabeetana markaa ugxantii ma soo gaadhaysa gabadhiiba laakiin kuwaasoo kale waa iisi adduunyada kale halkaasaa loogu tagaa laga soo qaataa halka ay ku jirtaa laga soo qaataa dabeetana gabadhiiba ugxanteeda lasoo qaadaa waa la isku daraa dabeetana ilmagaleenkaa loogu shubaa taasi waa iisi adduunyada kale inaguna insha Allah waynu gaari doonaa way doctore marka aynu imika inagoo u geli doono bal hadda marxaladaha kale ee dumarka ku yimaada qodobada ugu muhiimsan ee aynu helay ee imika inta aynu ka sheekeynay marxaladan aynu helay waxaa ka mid ah koob qaadka iyo balwadii cuntooyinkii fiicnaa ee qofku aanu qaadanin iyo tuumbooyinka oo xidhma infectioniski cudurrada la kala qaado qodobada afarta marka aynu ka nimaadno waxaynu u baahannahay bal hadda raggii saameynta ugu badan ee dhibaatadu ka haysta waxa weeye inay dumarkii uun ku cadaadiyaan in xaaladani xaggeeda ka timi oo dhakhaatiirtii aanay imanayn ilaa imika qiyaastada markaad qiyaastay inta adiga kusoo booqan karta faaduma ahaan iyo dhakhaatiirta kaleba raggii ma ku soo dhiiranayaan oo ma kula tahay in maalinta kamisa ay fahmayaan mise weli waxay u baahan yihin in loo baaqo oo la yidhahdo war reerkana ha duminina idinkuna naftiina basharada gelina goobihii caafimaadka kaale dumarkii soo raacaan ma wallahi baaq way bay u baahan yihin raggu way waxaad moodaaba raggu inaanay mid walba wuxuu kale maxaana layga baadhada gabadha baadh marka waxaan isiraahdaa malaha maba fahamsanaba in maxaa hayday gabadha iyo wiilkuba markay labadooda ijtimaac sameeyaan inay ubad ka dhalanayso dee haddii kale waxay ka dhigantay ani layma baahna kol haddaad tidhi ani haybaani marka gabadhu keligeed ha iska dhasho weeyaan way taasina ma suurtagelayso taasina ma digaagan imika aynu beedka ka dhalino ayaa dee keligood dhala mabaan arag diig lagu daraye dee mala kuwaasay dumarkiina markaa noqonaya way marka waxa weeyaan tusaale adag oo u baahan in raggu ay fahmaan amaba ay dareemaan iyaga oo xaqiiqadana aan ka fogaanayn isla markaasina xagga warwarka iyo walbahaarka amaba dumarka iyo xaaska soo food saari karaana
ay tahay mid inta badan la tilmaamo inay keli ku tahay gabadha badi xagga saamaynta ay arrintaasi keeni karto ee hadday noqoto labadii qof marka ay muddo wada joogaan ee ilaahay dhexdoodii ubad keeni waayo warwarkii iyo saamayntii maxay keeni kartaa kale والله هرت وح ما كوش يا إيدون وقت بلش لقاعدين غيرك بكل ما ينبع بيلك دي بعروف بلقدونية هذا إسقي يدي موري ما بي بيل بكوتشري جورجي وح environment كي أيا وح كوكيني ينبع مياند ولي وحبد عليه هذا وابل جاي نبغى كورسنا يوم كتشوجي عشان يطمن عيشه حلاقي بحل جاي وحنت سودي اللي سيبكم مسوع جاجي حلا مش كتجي سقوا حكي عجت تجين مركا وح يعني تصوير تدومك أو قدر رنبا كحيل هذا دوم قبل اللي جور وريو caadadeedu dhan waxay ku xidhan tahay gabadha warwarka waxa weeyaan maskaxdiima markay warwarto waxay soo deynaysaa stress stresska waxyaalaha stresska lagu soo daayo dheecaanada stressku keeno madar inuu gariirno waxaas oo kale hadii qofku naxo waxaasi waxay keenaan waxay u yihiin negative bay u yihiin dheecaanka laga soo daayo maskaxda ee xukuma in ay gabadhu waxaan soo dayso negative bay ku yihiin yani waa wajoojinayaan ترى قبل وحكون عايزين عليه وحن بسودينه إيه كده مركز هرتي وسكها جاكسنيد إن أنت وحما قبطه غيرك ودقية هاي أنت رفيرة نسبة دلو دي بدأ يميد وعطر غيرك إلا وعلي مياند سؤال بدنه عن لوبا هناك قال ويديني يا موقتها سؤال مركز حوار نختار كيبا يجي لبيه طبعا بلود مركز بدن ولاتان اتسعاد يود تشوكتان حتى وحيلين ويدان كاله أنت كهر سوا نورمال ما كان هذا سومالي لان بالبالس كدونيا بهذا كتب به وي وترى هالكاسة مركبة واحد عضي سايكل كيبا يعني النورمال كي عادة دي إيمان يسوي حونا ببا سخرة ذي وشقيين با واسبتالين با لأن عيك الأرنتي بيسكروكتي با قبل يو حبا قبين إنن كيو حبا قبين غير كاسي بروبلم كايو سؤالهاس بابا دلان كوريدي كتب به هذا حقيقة هو wax la tilmaami karo ama aynu fahmi karno heerka iyo saameynta ay keeni karto haday noqoto burburka reerka haday noqoto xaalad caafimaad darro oo ku timaada sababaha ama su'aalaha noocaasi ah iyadoo oo ay fiican tahay in qofku markasta uu fahmo in aqoonta iyo xirfadda iyo caafimaadku leeyihiin waxa ugu muhiimsan isla markaasina uu mas'uuliyad badan ka muujiyo waxa kale doctor ku weydiin lahaa markay arintu halka marayso ama xaaladdu ay halka marayso inaga oo dumarkiina u gali doona ma waxa jirta waxyaabo inta badan caafimaadka waxa la yiraahdaa qofku marka ay in badan inan soo hayd ee marka la guursado ee labadii qof isu yimaadaan waxay u baahan tahay muddo badan inay la qabsato noloshan cusub maxaa ka jira arrimaha noocaas oo kale waxaas wax jira ma taas waxa weeyaan malaha dadkeenu bada iska mooyaane waxaas wax jira maaha waxaan gabadhu caadiyan horta waxa weeyaan inaad mid fahanto ninku waxa weeyaan wasaynu u sheegno ninku waa warshad yar buu iska sitaa ilaahay baa warshada iska siiyay waxaan baasay warshad yar haysato kolba wad furanaysaa gabadhu sidaa ma aha gabadhu waa bank waa bank marka waxa markay dhalato ayaa ilaahay siiyay embusi waxay sideetaa ugxan ilaa waxa noqonaysaa 6,000 7,000 baa laga yaabaa inay la dhalato xabadood okay marka hore waa milyano kolba qaar waxay soo adigu soo dhintaanba marka dhalanayso waxa cadceedu jaba markay gabadhu qaangaad noqoto waxa laga yaabaa ilaa kumba ka soo qaad 500 xabadood inay iska haysato baankay u taala gabadha kolba qaar bay marka kala soo baxaysaa marka waxay leedahay iyad waa wareegto waa cycle 28 cishaba mar bay hesha caadada qoyla 10 way qatan tahay yaani way daahir 7 caadi gabadhu leedahay marka cycle-keegu waa 28 ka cisho maalinta 14aad ayuu gacanteeda soo deysaa wadi fahantii soo ma okay hadday adaba ugxanteedaas iyo waxeegaasi caadi u yihiin oo sida kuu sheegayo de waa la xukumaa markay sidii ay caadada hesho ayaa dhag markiiba brainkiiba wuxuu soo deynaa maskaxdii ayaa wuxuu soo deynaa soo amraya hypothalamus tii ka hooseysay waxaa la soo deynayaa dheecaankii kii kale dabeetana ugxantii baa koraysaa ugxantii markay korto dabeetana maalinta 14aadna way qarxaysaa you see waa caadiyan taasi markay socoto say u socoto mar bay dhamaanaysaa waxa baankida ila waa meel taga soo kolba wax ka soo qaadanaysa markay dhamaato wax la isweydiinayo dambe ma jirto gabadhi waxay gaaraysaa xilligii ay dhaqanka guurka ahayd wax saadida ku sheegtaa marka wax way gabadhu ama ha raagto ama ha iska joogtay cycle-keega caadiga u ah marka ay soo deyso gaxantii waxay noolaataaba gaxanteedu 24 saacadood
hadduu markaa oday habeenkaa waxba uu samayn waayo ama uu ka daaho ama uu maqnaadaba ama uu iska maqnaadaba waxa weeyaan iyadoo 24 saacadood hadday ugxan ku weydo hadday hawshaas way dhamaatay hawshaas way dhamaatay waye doctor laba su'aalood ba xagga ragga inoogu horeeyo kaliya xaggii dumarka inuu gudbi doonaa dadkana waxaan ka codsanayaa inay qortaan wixii su'aalo ay qabaan oo toddobaadka dambe ay doctor Faadumo iyo anigu halkaan aan isugu iman doono waxa jirta waxyaabo ilaahay xagga ilaahay ka yimaado oo ay ka mid tahay ragga iyo dumarka marka labadii ay wada joogaan waxa dhasha caruur caruurtaasi waxa laga yaabaa qoysaska qaarkood in 5 hablood 4 hablood 6 hablood weli wiilba aanu meesha iman dadka qaarkood marka aad la sheegaysto ama la fahanto war gabadhan waxa xornaa waa hablo dhalay baltii gabdhoole tii ragga dhalaysa baa loo baahan markaas ay guursadaan halka dhibaato ka timaada bal hadda arintaas oo kale iyadoo ilaahay ku xirantay dana maxaa balada cilmi aad nagu dheertay dadkii u faahfaahin kartaa horta waxa weeyaan inaad wiil noqoto ama inaad gabadh noqoto horta dumarka kuma xidhna ragay ku xidhantahay gabadha iyada ugxanteedana soo daynayso markasta waxay sidataa chromosomes la yiraahdo X ayay sidataa adayna Soomaaliga ay lagu calaamadsaday chromosome waa X inankii wiilkii reerka xukumayay hadduu gabadhii u soo ugxantiisu soo daynayay hadday epsilonti ay awood yeelato 250 ka xabadood u sii daayay xabadun baa qabanaysa ugxanta maqaadirta ilaahay markay ugxanta gasho xabadaasi ay inanta ugxanteeda la kulanto ugxantu way sixinaysaa midba ma geli karo marka xabada gasho hadday sidatay chromosomeski YT dabeetana waxay noqonaysaa wiil baa la helayaa marka waxaan raadinaa determination of sex waxa ka dhigan tahay inaan heshaa ma inaan heshaa kuma xidhna gabadha halaga bogsado waxay ku xidhan tahay ninka ragga ah laakiin imtixaanada ka war gabadhiboona waa gabdhoole uu ka tagayaa gabadh kale guursanaya ila ilaahay ba ku imtixaanay markaas uu oranaya ayuu wiil helaya markaas la oranaya moogtahay tiiba gabdhoole waa laga tagay yani imtixaanada ka mid tahay marka waxaan oran karnaa waxa weeyaan waxa xagga ragga ka imanay xagga ilaahay labadaba xaggaasi ku xidhan hada keentaan epsilon tana way hada keentaan inaan u bala dhali hada egasta noo dhiibtaan inaan u bala dhali waxaan doonayaa doctor mushkiladahan iyo xaaladahan jira ragga aynu ku soo sheegnay heer intee legba Soomaaliland wax laga qaban karaa imisa laakiin aan dalka wax laga qaban karin imisa laakiin aad oran kartaa arintaasi waxba laga ma qaban karo horta waxa weeyaan wax walba badideeda waa laga qaban karaa hadii aan ku sheego haday tiyubiska xidhan yihiin dhuuma marinada soo maray haday tahay Soomaaliland waxba laga ma qaban karin inaan iyaga inaan baa daablahana tiyubiska xidhan yihiin inamada dhuuma xidhan yihiin waxba ka qaban kartay dibadda u baxaan mooyaan laakiin de waxa horta muhiim ah horta qofku inuu ogaado halka problemku ka jiro soo waxa fiican in marka hore ay dhakhtaradooda intay u tagaan loo sheego halka deetana loo tilmaamo halkii ku habooneed war dhakhtarka Hindiya tag waxa lagu sameeyay adoo waxaaga haysto qoran baa dhakhtarkii kale ula tagaysa in la ogaado doctore aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa talooyinkaasi waa kuwo ku aadan xagga ragga dhibaatooyinka iyo saameynta aynu ka sheekeynayno waxay ahaayeen kuwa xagga ragga ka yimaada hadday tala tahay iyo hadday dhaliil tahay iyo hadday wax ilaahay ka timaado tahayba Faadumo halkan way nooga soo bandhigtay aadna waan ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay ilaahay ma keenay inta dareemaysa xaaladahaasi inay toos ula soo xidhiidhaan dhakhaatiirta ay Faadumo ka mid tahay maaha Faadumo dumarka oo kaliya laakiin si haddii dhibaatooyinkaasi jiraan talana way ka siin kartaa daawona ilaahay wuu kugu soo dhiibi karaa waana aad ugu iman kartaa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo isbitaalka gaarka ee ku yaala xaafadda Golchano ee Iimaan la yiraahdo ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa bal hadda xaggii dumarka imaanana raggii halkaa waxaan ku wari ama tala aynu siino ama aynu ku yara ciirno ama aynu runta u sheegnay halkaa Faadumo raggii waan ku daboolay arrinkiisii haweenkii baa yimi bal hadda haweenkiina wixii mushkilad ah ee xaggooda ka imanaysay bal hadda inoo soo koobo inoo faahfaahin horta waxa weeyaan waxaad moodaa Yurub iyo halkan inaan kala gadisanahay oo waxa Yurub ku fara badan inaga aad inoogu yeeryahay Yurub waxa ku fara badan dad diin la maaha moogtahay marka gabadhu dhowr saaxiib ay leedahay deetana saaxiibada faraha badan leh waxay keenay cuduradii la kala qaaday deetana iyaga kuwaasa ku badan marka tiyubiska meelaha marinadii waxa sabadida iyaga xidhan inaga ka gadisana inagu dad muslimiin nahay gabdhaheennuna way dhowrsoon yihiin waana dad salaad tukada moogtahay marka cuduradaasi naguma badna laakiin inagana maxay nagu badan inaguna wada burburanahay marka baruurtaas ayaa dumarkeena badideeda dhibaatada
waddanka joogta intaan aragnay hablaha buurbuuran unbay dhibta badani haysataa marka waddanka u fiirsanay marka baruurtii maxaa keenaysaa inantii ku keenaysaa waa maxay sababta baruurtu waxay keentaa caadiyan waxa weeyaan dheecaanadeena jidhku soo daayo ayay baruurtu waxay u bedeshaa nooc ka mida dheecaanada loo baahayay laakiin ah weak ama mid maxaa hayday maxaa lahdaa daciifa dabeetana kaasi wuxuu keenaya inay gabadhii jidhkeega u qaato inay sidii waxay ur leedahay oo kale dabeetana badida ovulationka ama ugxansoodaynta ayuu dhibaateeyaa soo maad garan marka waxay dhici karta in caadadii ay noqoto si aan caadi ahayn oo maxaa hayday had iyo jeer caado ama ka maqnaanaysa ama maxaa hayday caado fara badan ay aragto iyadoo aan la soo daynin maxaa hayday ugxantii markaas waxa weyaan haddaan halkaa dib ugu noqon waxa weyaan gabadha caadadeedu waa ninka wali waa 28 cisho waxaa loo kala qaybiyay 14 cisho iyo 14 cisho 14 cisho hore waa diyaarintii in la soo daayo ugxanta 14 dambana waxa weeyaan diyaarintii loo diyaarinay ilmihii meeshuu istaagay fariisanayay loo adkeynayay waa difaanti soo ma si fiican ma fahmin marka waxa weeyaan labada face aynu aragnay laba nooc oo dheecaana la soo daayo oo midna waxa la estrogen midna waxa la progesterone hadday gabadha hadaba ay heli weydo ugxantii soo dayn weydo ay bilaabantayna gabadha waxay yeelanaysaa estrogen fara badan dabeetana taasina waxay keenaysaa in dahaarkii ku dahaarnaa ilmagaleenka inuu isbadiyo way